saynisyahano badan ayaa aaminsan in xilligan dunida lagu tartamayo hubka ka duwan nuclearka iyo guud ahaan hubka noocyadiisa kala duwan haddaba waxa ay sheegeen waxa bedel ku ah ee la isticmaali doono waqtiyada soo socda su'aashaas ayaa waxa la weydiiyay saynisyahanka weyn ee reer Faransiis iyo caalimka cilmiga mustaqbalka adroosa ee Jean Christopher Bonny ayaa waxa ku jawaabay Mandela ayaa qoray sanadkii 1995 in aqoonta ay noqon doonto hubka adduunka ee qarniga 21aad iyadoo bedeli doonta hubka nuclearka iyo kan sida weyn wax u gumaada sidaan aaminsanahay qarniga 21aad in nidaamka maskaxda gacan ku samayska ah ee smartiga ay noqon doonto hubka lagu dagaalamo ama u badan uraniumka warshado waaweyn iyo waxa ay adag tahay in la helo waxay u badan tahay saameynteeda maadooyinka silicon iyo koronto oo qura caalimka ayaa hadalkiisa sii raaciyay nidaamka maskaxda smartiga ah in uu yahay mid aan la ilaalin karin sida loo ilaaliyo hubka nuclearka iyo uraniumka balse platinum Iran ama Kuuriyada Waqooyi oo kale arrintaas oo ka dhigaysa in hub caadada ka baxsan oo aan la saadaalin karin dhibaatada uu geysan karo ugu dambeyntiina maskaxda smartiga ama gacan ku samayska ah ee kombiyuutarada iyo aaladaha robotka ayaa ah mid aqoon ku dhisan hormuudkeeduna uu yahay cilmi dheer iyo sidoo kale in aad dunida inteeda kale kaga dheerayso maadaama waxyaabaha laga sameyn karo ay meel kasta iska yaalaan oo la heli karo sidaa darteedna qarnigan aan ku jirno waa kii aqoonta